aad iyo aad u mahadsan tahay sidoo kale kulan wacan akhyaartana daawanaysa ee wararka cayaarahana waxaa ka mid noqon doona kooxda kubadda cagta Elman FC oo si rasmi ah loogu caleemo saaray horyaalka Soomaaliya xilliyeedka 2012 ah markii ay 2-1 ku garaacday kooxda Banaadir FC kooxda Barcelona oo lagu waramayo inay video ama muuqaal ay ka sameysay qaladaadka daafaca kooxda Real Madrid ee Pep uu geystay ciyaartooydeeda Ashley Cole ganax lacageed oo gaaraya ilaa 90,000 oo gini ayuu kala kulmay xiriirka FA kadib markii uu boggiisa Twitter-ka ku ablagaadiyay golayaha kooxda kubadda cagta ee Juventus Buffon oo qandaraas cusub u saxiixay kooxdiisa qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawadayaal ku eegaynaa ee u diyaar garooba kooxda kubadda cagta ee Elman FC ayaa si rasmi ah loogu caleemo saaray horyaalka Soomaaliya ee xilliyeedka 2012 kadib markii ay 2-1 ku garaacday kooxda Banaadir FC kooxda Elman ayaa qamiistii ku guuleysatay horyaalka Soomaaliya ee sanadka 2012 waxaana loo caleemo saaray kadib markii ay 2-1 isaga reebtay kooxda Banaadir FC waxaana ay Elman aruusatay 29 dhibcood 12 kulan oo ay ciyaartay iyadoo haatan ay u harsan tahay 2 kulan guusha Elman ay ka gaartay kooxda Banaadir FC ayaa u saashay inay noqoto horyaalka Soomaaliya ee xilliyeedka 2012 kooxaha LLBB iyo Jenya oo ah kooxaha ku soo xiga Elman ayaa waxa ay wada leeyihiin min 19 dhibcood iyadoo horyaalka Soomaaliya xilliyeedka 2012 ay ka qayb galayaan ilaa 8 koox oo kuwa heerka koowaad ahi kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa lagu waramayaa inay video ama muuqaal ay ka sameysay qaladaadka daafaca kooxda Real Madrid Pepe uu geystay ciyaartooydeeda wararka laga helay dalkaasi Spain ayaa ku waramaya in kooxda Barcelona ay video ama muuqaal ay ka sameysay qaladaadka daafaca kooxda Real Madrid uu geystay ciyaartooyda Barca xilli ciyaareedkii hore ee 2011 idaacad ku taala dalkaasi ayaa laga soo xigtay in kooxda Barca ay muuqaalo ka sameysay qaladaad lixaad leh oo daafaca reer Portugal kula kacay ciyaartooyda kooxda Barca gaar ahaan xiddiga adduunka Lionel Messi wararka ayaa intaasi ku daray in kooxda Barcelona aysan doonin xilligan inay soo bandhigto muuqaalka qaladaadka ah waxaana muuqaalkaasi gacanta ku haya madaxda kooxda Barcelona sameynta videoga qaladaadka Pep ee kooxda Barca ayaa la sheegay in kooxda ay kala tashatay maalinkii hore ee kooxdaasi Pep Guardiola kaas oo qalinka ku duugay in la sameeyo tababare Tita Villanova ayaa toddobaadkii hore sheegay in daafaca kooxda Real Madrid ee Pepe uu qaladaad lixaad u geysto ciyaartooyda indhaha waa kooxda waxaana uu tilmaamay in garsoorayaasha ay isha ka dabooshaan wax ka qabashada qaladaadkaasi hase yeeshee ciyaaryahanka reer Portugal ee Pepe ayaa biyo qabo ku shubay eedeynta loo soo jeediyay waxaana uu ciyaartooyda kooxda Barcelona ku eedeeyay inay isturtuuraan dhinaca kalena kooxda Real Madrid ayaa si kulul uga jawaabtay muuqaalka laga sameeyay daafaceeda waxaana ay sheegtay in Pep uu yahay daafac jecel inuu si daacad ah u guto shaqadiisa golayaha kooxda difaacanaysa horyaalka Serie A ee Juventus Buffon ayaa qalinka ku dugay heshiis cusub oo uu sanado kula sii joogaya kooxdiisa golayaha reer Italy ayaa muddo la sii joogi doona kooxdiisa kadib markii loo ogolaaday inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdaasi golaya Buffon ayaa qandaraas cusub u saxiixay kooxdiisa waxaana uu kooxda Juventus la sii joogaya ilaa 2016 kadib markii uu saxiixay heshiis 3 sano ah 34 jirkan ayaa kooxda Juventus ku soo biiray sanadkii 2001 xilligaasi oo kaga soo biiray kooxda Parma waxaana golayani uu kooxda u saftay 330 kulan 11 sano ee uu joogay kooxdaasi xiriirka kubadda cagta ee FA ayaa ganax lacageed oo gaaraya ilaa 90,000 oo gini ku ganaxay daafaca kooxda Chelsea Ashley Cole kadib markii ciyaaryahankaasi uu boggiisa Twitter-ka ku aflagaadeeyay xiriirka FA ugu dambeyntiina kabtanka kooxda Chelsea John Terry ayaa aqbalay ganaxii dhawaan uu kala kulmay xiriirka kubadda cagta Ingiriiska FA markii laacibkaasi lagu helay fal cunsurinimo uu kula kacay daafaca kooxda QPR ee Antoine Ferdinand Terry ayaa aqbalay ganaxaasi waxaana uu kooxda ka maqnaanayaa ilaa 4 kulan oo ay ku jirto ciyaarta adag ay kooxdiisa Chelsea la leedahay kooxda Manchester United kabtankii hore ee England Terry ayaa horaantii sanadkan lagu soo ogay dacwad markii uu aflagaado u geystay daafaca kooxda QPR Antoine Ferdinand waxaana dacwadaasi kadib xiriirka FA ay sheegeen in ciyaaryahanka reer England ay ku ganaxeen 4 kulan iyo lacagdan 220,000 oo gini xubintii sportiga aad kala socoteen telefishinka caalamiga Universal qiyaar xilliga waaniga intaas waxaan idin soo jeedinayay anigoo Mustafa Xasan markale idin ku doo studio ayaga magaalada London